aqoon-yahanka lixaad waa Dr. Nabil Al-Qaylani. aqoon-yahankan jaamacadda Qaahira ayaa u dirsatay dalka Czechoslovakia si uu cilmi baadhiso badan halkaas ugu soo sameeyo, waxaana uu ku xeel dheeraa aqoonta atomka. 27 Janawari 1945 ayaa la soo wacay taleefankii qolkii uu ka deganaa hodheelka, kadibna wuu baxay. sidii ayaana lagu waayey oo indhihii ayaa loo leeyahay. aqoon-yahankaas raq iyo ruux toona jaamacaddii dirsatay ee Qaahira si kasta oo ay isugu dayday inay ka warkeento aqoon-yahankaas jaamacaddii ay u dirtay iyo booliskiiba way waayeen xog ka badan in la soo wacay oo uu ka baxay hoteelka. sidaas ayaana laguba waayey aqoon-yahankaas, balse waxaa la yaab noqotay in dowladdiisii Masar aanay iskuba hawlin inay sii daba gasho aqoon-yahankaas dhan ee ka maqan, sidii inay ogeyd masiirkiisa iyo halka uu ku dambeeyey. aqoon-yahanka toddobaad waa Samiir Najiib, waa Masaari. isaguna waxa uu ku takhasusay aqoonta atomka oo sida aan ka dhadhansaday aqoon-yahanadan la shirqoolay oo dhan aqoon aan dhaya lahayn, Soomaalideennanina aanay warba ka hayn. waxa aad u buunbuuniyey oo inuu ka faa'iidaysto damcay Maraykanka isagoo da'adii 30 ku jira. markii la arkay heerkiisa iyo halkudhega aqoontiisana inay dhankooda marsadaan ayay damceen, balse dagaalkii 1967 kadib waxa uu dhaaday in cid walba uu uga baahi badan yahay dalkiisii hooyo. 13 August 1967 ayuu goostay tigidhkii uu dalkiisa dib ugu soo safri lahaa. dhinacyo badan oo doonayay inuu la joogaana waxa ay u soo bandhigeen hanti indho-daraandar ah iyo cilmi baadhisyo isaga soo jiidanayay, balse wuu ka diiday. go'aankiisana wuu ku adkaystay. haddii uu duulitaankiisii soo dhowaaday oo uu madaarka u sii socdo ayaa shirqoolkiisa la agaasimay oo gaadhi weyn oo shaaximan ayaa gaadhigii sii jiidhay ama la jiidhsiiyey, sidaasna waa lagu khaarijiyey. aqoon-yahanka sideedaad waa Nabil Ahmed Valival oo ah Falastiini. isaguna waxa uu ku takhasusay aqoonta atomka isagoo da'adiisu dameeyo ku jira, in kasta oo uu ku jiray deegaan ay yuhuuddu gumaystaan oo xero qaxoontiyeed ahna. shaqo kasta iyo lacag kasta oo loo soo bandhigay wuu diiday. kadibna maalin ayuunbaa la waayey raq iyo ruux toona. 28 Abriil 1984 ayaana meydkiisii la helay. aqoon-yahanka sagaalaad waa Yaxya Mashti. isaguna waa aqoon-yahan ku xeel dheeraa cilmiga atomka oo Masaari ahaa. waxa uu ka mid ahaa 10 aqoon-yahan ee ugu aqoonta badan cilmiga falgalka nukliyeerka. waxa uu ka baxay jaamacadda Cambridge ee London, waxaana uu la howlgalay Ciraaq waayihii ay maaganaayeen inay nukliyeerka samaystaan. waxaa in badan daba socotay Norway oo dhalashadeeda la baryaysay oo ka hadhi weyday. Norwayna waa mid ka mid ah xeryaha ugu mudan ee adhiga ugu mudan ee yuhuuddu ku adeegtaan ku jiraan. 13 Juun 1980 qolka 941aad ee hotel ku yaala Baariis ayaa laga helay meydkiisa, balse cidina ma ay sii dabagelin oo waa la ogaa cidda dishay inay tahay Mossad, waxna aan laga qaban karayn. shirqoolka iyo dabinada yuhuuddu kuma ay ekeen keliya ragga aqoon-yahanada ee muslimiinta ee ku gacan saydha la shaqayntooda ee ka soo horjeesta. haweenka muslimiinta ee aqoon-yahanada ahina kaalintooda ayay ka heleen shirqoolladaas. waxaana aynu soo qaadanaynaa 3 aqoon-yahanadood oo islaam ahaa oo iyagana aqoontooda darteed loo shirqoolay. aqoon-yahanada koowaad waa Samiira Muusa. waxay ku dhalatay 3 Maarch 1917 dalka Masar. tuuladoodaas qoyskoodu wuu ka sheeganaa, aabbaheedna kaalin ayuu ku lahaa. gurigooduna waxa uu ahaa gole ay duqayda tuulada ku kulmaan oo lagu gorfeeyo hadba waayaha jira iyo fadhi ku-dirirka. waayahaas waxay waxbarashadu ku koobnayd ragga uun. Samiirina waxa ay ku barbaartay jawiga siyaasiga ee gurigooda ka jiray. muddo kadib waxaa soo baxay ururo u doodaya in hablaha xuquuqdooda waxbarasho loo ogolaado. haddii la aqbalayna Samiiri waxa ay ka mid noqotay gabdhaha nasiibka u helay inay waxbarashadaas hantaan, balse awalkii horeba aabbaheed ayaa gurigooda wax ugu dhigi jiray oo inta uu xeerkaas ka tallaabsaday wax soo baray. Samiira waxaa markiiba ka muuqday astaamihii lagu yaqaanay dadka garaadka baxsan ee fogaan aragga iyo aqoonta ku suntan. maamulihii dugsigeeda oo gabadh ahaydna waxay warshad yar u samaysay dugsiga si ay awoodaheeda u soo saarto. markii ay dugsigii ka baxday waxa ay gashay jaamacadda Qaahira, waxaana ay ku biirtay kulliyadda sayniska. dhiinkii ama camiidkii kulliyaddaas ee garab qabtayna waxa uu ahaa Dr. Cali Mushrifa oo isagana la shirqoolay.
markii ay jaamacadda dhammaysanaysayna waxa ay ku baxday heerka ugu horreeya ardaydii ay isku fasalka ahaayeen. kama ay hadhin waxbarashadii ee waxa ay maastertii ku diyaarisay xidhiidhka hawooyinka iyo heerkulka. bah cilmi baadhis loogu diray ingiriiskana way ka mid ahayd. halkaasna waxa ay ka soo kororsatay shucaaca nukliyerka iyo aqoon la xidhiidha. shahaadadeedii PhD-dana waxa ay ku diyaarisay X-rayda iyo sida ay ula falgasho walxaha kala duwan. sanad ayay sii joogtay ingiriiska iyadoo damacsanayd in hubka waayahaas la isugu faanayay ee atomic bombka ay aqoon dheer u yeelato. waxaana ay aaminsanayd aragti ah inaanay awooddu ku koobnaan gacanta dowladaha waaweyn ee ay dowlad weliba fursad u hesho in ay aqoon hantido. baadhitaan dheer dabadii wayba awooday inay atomic bomb ka samayso agab iyo walxo ay cid weliba adeegsan karto oo heli karto. markiiba Maraykanka iyo mudanayaashiisa u arrimiyey ee Yuhuudda ayaa damcay inay dhankooda marsadaan oo u yeedhaan iyagana ay u shaqayso, balse way diiday iyada oo leh. waxaana ay aasaastay guddida nukliyerka ee Masar. sanadkii 1951 ayayna Dr. Samira Musa u ambabaxday dhanka Maraykanka iyada oo daraasad iyo cilmi baadhis damacsanayd inay halkaas ka soo samayso. halkaas ayaana lagu shirqoolay. waxay booqashadaas cilmi baadhista ku tagtay jaamacadda St. Louis ee ismaamulka Missouri. markii ay ka dan dhammaysatayna waxay damacday inay dalkeeda u laabato, balse waxa uu dhambaal baaqahi uga yimid dhanka California iyada oo u sii socota oo buuraleyda deegaankaas dhex maraysana gaadhi weyn oo shaaximan ayaa jiidhay oo gaadhigeedii webi ku tuuray. darawalkiina gaadhigii wuu ka booday oo ka cararay. markii baadhitaan lagu sameeyeyna waxaa la ogaaday in darawalka magaciisu uu Samays ahaa. dib dambena looma helin. sidaas ayayna ku nafweyday Dr. Samira Musa. mashruuceedii nukliyerka ahaana uu ku soo afmeermay. aqoon-yahanada labaad waa Dr. Saamiya Cabdiraxiim. waa dhakhtarad Sacuudi ah. gabadhan aabbaheed ayaa dhacdo shil ah oo xun ku dhintay kadib markii uu qalfoofka madaxu jabay. iyaduna waxa ay go'aansatay inay noqoto dhakhtaradii qalliin ee ugu horreysay ee Sacuudiyad ah. maadaama aanay jaamacadaha dalkeedu aqoontaas bixin jirinna waxa ay u ambabaxday dhanka Maraykanka. jaamacadaha caafimaadka ee ugu mudan ayayna halkaas ka gashay. waxaana ay isku hawshay baadhitaanka iyo daraasaynta aqoonta caafimaadka heer ay samaysay daraasado ay adduunka oo dhammi ku intifaaceen. waxay Dr. Saamiya ku tilmaanayd inay ikhtiraacyo iyo hal abuurro badan ku soo kordhisay aqoonta qalliinka maskaxda iyo habdhiska dareenwadka. waxyaabo waayahaas aad u adkaana ay fududaysay. kadib markii la arkay in ay ka dhabaysayna waxaa loo soo bandhigay abaalmarin $5 milyan ah iyo in la siiyo dhalashada Maraykanka, iyaduna ay ka tanaasusho ikhtiraacyadeedaas qaarkood oo nin Maraykan ah lagu sheego. ileen waa uu ismiiratadaas ummadaha ku dul noole, iyaduna way diiday oo ganafka ayay ku dhufatay. waxaa intaas u dheereed aqoon-yahanadani inay ikhtiraacday qalab lagu maamulayo habdhiska dareenwadka marka la furayo iyo marka la xidhayo, sidoo kalena lagu ogaanayo xanuunka kansarku isla marka uu bilaabmayaba. muddo aad u dheer ayuuna ahaa agabkaas noociisa qudha ee ka yaalla adduunkaba. Dr. Saamiya sidaas ayay aqoonteeda iyo cilmi baadhisteeda u wadatay. subax ayuunbaa lagu waabiristay TV-ga CNN oo soo bandhigay sawir ah maydka Dr. Saamiya oo qolkeeda habeennimadkii lagu dilay iyada oo naqaska lagu dhajiyey oo la sarqiyey. markii la dilayna waxaa la qaatay dhammaan cilmi baadhisaheedii iyo ikhtiraacyadeedii iyo wixii ay markaas gacanta ku haysayba. iyadana inta lagu riday tallaagada howlgab ah ayaa la iskaga tegey, balse waa la qabtay kii dilay. isaguna waxa uu ku koobay dembigii naftiisa oo lacagtii ay haysatayna wuu qaatay. aqoon-yahanada saddexaad waa Salwa Xabiib. waa brofesoorad ka tirsanayd maxadka cilmi baadhisaha Afrika. waxa ay aad ugu lidaahayd Yuhuudda iyo mashruucooda Zionismka. aadna waxa ay u tijaabin jirtay inay fashiliso oo dabagasho oo daraasayso qorshayaasha iyo higsiyada ay ka leeyihiin Afrika. markaas la dilayna waxa ay baahin rabtay buuggeeda ay ugu magac bixisay At-Taqalqul As-Suhyoni fi Afriqiya, ama sida ay Zionismku Afrika u dhex galeen. waxaana la arkay iyada oo qolkeedii taallo oo gowracan. si kasta oo la isugu dayeyna waa la garan waayey cidda dhibaatadaas u geysatay. dhacdadaas dilkeeduna waxa uu la halmaalaa oo la mid noqday dhacdadii dilkii iyo shirqoolkii aqoon-yahan Jamaal Xamadaan
oo isaguna daraasayn badan ku sameeyey yuhuudda. saddexdaas aqoon-yahanadood ee muslimka ahiba sidaas ayay ku baxeen. hadhowna isla kuwii dilay ayaa intay inoo yimaadaan odhanaya xuquuqda dumarka ayaanu u doodaynaa iyo dumarka ayaanu qiimahooda naqaanaa. xogahan oo dhan waxaad ugu laaban kartaa dhiganaha cudamaa u mashaahiir ikhtaalatumul masooniya bogaggiisa 207 ilaa 245. wassalaamu calaykum.